wasiirada sharafta badan iyo gudoomiyaha iyo taliyaha iyo dhammaan bahda warbaahinta waa salaamantihiin. marka hore waxaan ku bilaabaynaa maanta waxaa dhacay in nin argagixisada ka mid ah oo inta jaaka soo hubeeyey oo ku tuuray ciidanka booliska Soomaaliyeed sarkaal ka mid ah ku dhaawacmay. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo. asagiina ninkiina waa baxsaday oo markuu jaakada tuura waa la qabtay. marka ilaahay sarkaalkaas caafimaad ha siiyo. waxay ka mid tahay khataraha cusub oo nagu soo kordhay in qof inta jaakad soo xirto oo ku dhex tuuro dadka uu ka cararo, waana wax u baahan in laga qaato feejignaan cusub. taas markaan ka soo gudbo, sida aad ka warqabtaan dawladdu markii ay lahayd isu soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto Zoom. waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba. qiimeyntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fariistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo, wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo. qiimeyntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan, sideedii bay u taagan tahay. weliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus oo soo korinayay ay aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa. waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagan tahay. taasi waxay nagu sii adkaynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka, in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato. middaa amni ee aan maanta ka hadlayna ee qofkaa dadka jaakada tuurayana ayaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiirigelinaya aanaan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado, waayo mas-uuliyad baa na saaran. mas-uuliyaddana saaranne waxaan u walwalaynaa sida waalidku u walwalo carruurtiisa u walwalo. ninka mas-uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay. sida waalidku uga walwalo carruurtiisa oo uu khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badanoo dadaala u bixinayo ayaa looga baahan yahay dawladdu inay intaasoo kala bixiso. waxaa dhici karta dadka kaloo mas-uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin, inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaaroo u muuqda inay ayagu raadsadaan, hadhowna mas-uuliyadda annaga nagu soo celiyaan. sida aad ka warqabtaan bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey, ama ha naqdo mid dawladda lagu taageersan yahay ama ha naqdo mid looga soo horjeedo. bannaanbaxna sideeda dawladduna waa soo saari kartaa, dadka mucaaradkana waa soo saari karaan. wax weyn ma aha in dawladdu soo saarto ama mucaaradku, laakiin kulligood waa sharci darro. ama dawladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo, bannaanbax oo dhan waa sharci darro. ciddii samaysane hadday ayadaa isxilqaanta maahay dawladdu uma dirin, mana oggola. gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada. caasimadda waxaa jooga mas-uuliyiinta dhammayd, waxaa jooga dawladdii, waxaa jooga safaaradihii, hubka ugu badan baa yaalla. mudaaxaraad hub wata oo dad hubaysan wataan na sideedaba lama oggolaa karo. haddii ay dhacayso arrintaasi qiimayn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyoo yaraata iyo qiimayn kale unbay ku imaan kartaa. go'aanku waa sidiisii. qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtihiin baaqi bare ministerku uu soo jeediyey maalinta Jimcaha oo uu ku baaqa wada hadla inuu furan yahay, cid walba in lala hadlo inay furan tahay, cid walba oo wanaag doona wax kasta la iska afgarto. baaqaas bare ministerku soo jeediyey sidiisii u taagan yahay. saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas-uuliyiin waxay ku wada jireen in lees afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan. welina waa socotaa. cid albaabkaas waa furan yahay, sida bare ministerku uu baaqo u furan yahay. waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa. waana wada hadal see wax lagu wanaajiyaa, see wax lagu toosiyaa. ma aha wax go'aankii dawladda wax looga bedelaya maaha. go'aanka dawladdu go'aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimayn aan wax lagu soo dhisin. marka aad iyo aad u mahadsan tihiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan. waxaan ugu baaqaynaa
xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wado maanta warka hadda aanu aan jeedinayo mudaaharaad uma baahni mudaaharaad warbaahintiina anaa ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaana iga filan uma baahni soo bax inaan sameeyo waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dawladda iyo dadka kale dawladda ku jirna oo aan dawladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan hadda waxaan arkaynaa 40 kaamira ay hortaagan 40 kaamira waxay ku filan yihiin 5 qaaradood wixii fariin oo jira inay gaarsiiyaan wax baahiyo loo qabo maanta in dad isu keeno oo aan ilaa aniga dad isu ka imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan dadka aan u baahana waa kaamirooyinkan kaliya kaamirooyinka bisan u baahana ayagaasa warkii gaarsiin kara meel kasta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dawladda aan oo ka bilaabaya mas'uuliyiinta dawladdan ka bilaabaya kuwa kale dawladda ka tirsan ka bilaabaya isu soo bax lama ogola qofkii war qaba qofkii fariin qaba caburin ma jirto waa furan tahay wax cabur leeyahay ma jiraan wasaaradda amniga oo aanu mas'uul ka ahay haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa ma jirto caburin warkiina ku gaarsiiyo warbaahintan sharafta badan meel walba ay gaarsiinaya aad iyo aad u mahadsantihiin